Soomaaliya waxaa ku nool 1.1 milyan oo qaxooti ah iyo 1 milyan oo kale oo IDPs ah. In ka badan 1 milyan oo Soomaali ah ayaa inta badan ku nool Kenya, Ethiopia, Yemen, Djibouti iyo meelo kale si qaxootinimo ah. iyadoo malaayiin kale ay u barakaceen iska hor imaadyada, abaaro, macluul iyo caqabado kale oo ay soo wajaheen. qaxootiga iyo barakacyaasha intooda badan nasiib darro waa kuwa ugu nugul bulshadeena, haweenka iyo waayeelka iyo caruurtuna waa kuwa ugu sii daranba. hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka waxay in muddo ahba ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadanimada qaxootiga Soomaaliyeed ee dalka ku soo laabanaya iyo barakacyaashaba. waxayna qabatay waxyaabaha soo socdo: fulinta mashaariicaha wax ku oolka ah oo ay ku jiraan waxbarasho, caafimaad, maalgelin iyo weliba aqoon dhisid; fududeynta soo celinta qaxootiga soo laabanaya isla markaana si xor ah loogu soo celinayo gudaha dalka; balaarinta xarumaha hay'adda; sameynta qorshaha qaran ee qaxootiga soo laabanaya iyo barakacyaasha. waxa ay fulisay mashaariic kala duwan oo isugu jiray waxbarasho, caafimaad iyo maalgelin loo sameeyay qoysas danyar ah oo isugu jiray qaxooti Yemeniyiin ah iyo qaxooti Soomaaliyeed ee dalka ku soo laabtay. hay'addu waxay fulisay mashruuc soconaya 12 bilood oo isugu jiray waxbarasho laga dhiibayay lacagta iskoolka kaliya, weliba agabka waxbarasho 1300 oo arday oo caruur ah. sidoo kale waxay hay'addu caafimaad siisay 500 oo qoysas ah, iyadoo hay'addu u samaysay kaarar ay isbitaalada waxa ay rabaan oo ku saabsan caafimaadka ay wax kaga iibsan karaan. hay'addu waxay kaloo maalgelin u samaysay 110 qoys oo dadka Soomaaliyeed ee ka soo laabtay Yemen, kuwaas oo badnaa dumar, waxaana lagu soo xulay sida ay u kala duruufsan yihiin. waxaana ku deeqday dawladda Sacuudiga iyadoo u soo marisay hay'adda IOM, waxaana fuliyay hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka. isla mashruucan waxa ay hay'addu ku maalgelisay 75 qoys oo iyagana loo sameeyay kalluumaysi, iyadoo hay'addu markii hore u furtay tababaro ku saabsan kalluumaysiga. kadib waxa ay siisay agabkii ay ku soo kalluumaysan lahaayeen sida doomaha iyo waxyaabaha kale. 27 February 2017 hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa qabatay xaflad doorasho ee jaaliyadda Yemen ee ku nool Soomaaliya, iyagoo ku dooranayay gudoomiyaha. doorashada ayaa si nidaami ah ku dhacday, waxayna gudoomiye u doorteen Axmed Dalaali. gudoomiye Axmed Nuur ayaa hambaliyay isla markaana bogaadiyay qaabka doorashada u dhacday, waxaana u ballan qaaday inuu si dhow la shaqeyn doono. 7 Maaj 2017 hay'adda ayaa u samaysay qaxootiga Yemeniyiinta ah barnaamij ganacsi loogu abuurayay 60 qoys, kuwaas oo wajigii labaad ee loo sameeyay qaxootiga Yemeniyiinta. waxaana tababar ganacsi oo 5 maalin soconayay kadib loo qaybiyay agabkii ay ku ganacsan lahaayeen, kuwaas oo isugu jiray bagaash, raashin, dhar iyo macmacaan. waxaana gacan ka geystay UNHCR. qaxootiga loo sameeyay ganacsiyadan ayaa ka mahad celiyay shaqo abuurka loo sameeyay. tan ayaa ah midii labaad, waxaana ka horeeyay 50 qoys oo iyagana loo abuuray ganacsi, kuwaas oo ku guuleystay noloshooda. 6 May 2017 Gary White oo ah madaxa ugu sareysa IOM ee Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo booqday xarunta dhexe ee hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliyeed, wuxuuna mid u kor istaagay xafiisyada hay'adda, wuxuuna kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha hay'adda Mudane Axmed Nuur, iyagoo ka wada hadlay meesha ay wax marayaan iyo mashruucyadii IOM taa uu maalgeliyay Sacuudigu. warbixin kala qaadasho kadib, Mr. Gray ayaa la dhacay hanaanka ay u shaqeyso NCRI, wuxuuna ku bogaadiyay in la sii laabo dadaalada loogu jiro oo adeegyada dadka soo laabanaya iyo barakacyaasha. 23 May 2017 oo qaabilsanay hay'adda UNHCR Soomaaliya, Mr. Carolina Fan ayaa soo booqatay xarunta dhexe ee hay'adda qaxootiga qaranka ee Muqdisho, waxayna kormeertay dhammaan waaxyaha hay'adda, waxayna kulan la qaadatay gudoomiyaha. 24 May 2017 wafuud ka socotay dawladda Sacuudiga ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho si ay ugu kuur galaan halka ay wax marayaan mashruucyadii ay maalgeliyeen ee lagu talagalay qaxootiga Yemeniyiinta.
waxaana xarunta hay-adda ku soo dhaweeyay gudoomiyaha hay-adda iyo madaxa UNHCR iyo IOM ee Soomaaliya waxayna booqdeen meelaha ay mashruucyada ka socdaan. Juun 2017 hay-adda qaxootiga qaranka ayaa Muqdisho ku qabatay munaasabad lagu maamuusay maalinta caalamiga ee qaxootiga oo ay qaramada midoobay u asteysay sanad kasta in la maamuuso. munaasabada ka dhacday Muqdisho ayaa lagu casuumay mas'uuliyiin iyo qaxooti Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabteen iyo kuwa kale Yemeniyiin. mas'uuliyiinta halka lagu casuumay ayaa dhamaantood waxa ay sheegeen muhiimka ay tahay in la dhiirigeliyo hay-adda shaqada quruxda badan ee dalka ay ka hayso. dhanka kale isla maalintaasi ayaa waxay hay-addu qabatay ciyaar kubadda cagta ah oo loo qabtay qaxootiga Yemeniyiinta ah taasoo ciyaartoyda dhexdooda laga soo xulay ciyaarta ayaa dadkii daawanayay ay aad ula dhaceen qaabka ciyaartoyda u soo bandhigeen kubadda cagta. 1 Oktoobar 2017 hay-adda qaxootiga qaranka iyo hay-adda DRC ayaa waxay isla fuliyeen mashruuc lacag bixin ah oo loogu talagalay dadkii ka soo laabtay Kenya Yemen oo gaaraya 1500 oo qoys waxaana qoyskii la siiyay 300 waxaana maalgeliyay UNHCR. 1 Oktoobar isla bishaas hay-adda qaxootiga qaranka ayaa u sameysay qaxootiga Yemeniyiinta ah shahaadada aqoonsiga ee qaxootinimo taasoo u fududeynaysa joogitaanka dalka iyo isdhexgalka bulshada. 20 Diseembar 2017 hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa qaybisay agabyo isugu jiray maacuun, bustayaal iyo baco kuwaasoo loo qaybiyay barakacyaasha ku nool duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan kiiloomitir 3 waxayna tir ahaan gaarayeen 1365 qoys waxaana maalgeliyay UNHCR. fududeynta soo celinta Soomaalida ka soo noqonaya Kenya, Yemen iyo Djibouti waxaa loo soo celiyay guud ahaan sanadkan 6628. Kenya waxaa ka soo noqday 4477. Yemen waxaa ka soo noqday 1629. Djibouti waxaa ka soo noqday 522. Sameynta sharciga qaranka ee qaxootiga soo laabanaya ee barakacyaasha gudaha dalka hay-addu waxa ay qabatay shir heer caalami ah oo isugu yimaadeen inta badan golaha wasiirada dawladda federaalka Soomaaliya, dawladda xubnaha ka ah dawladaha federaalka, bulshada rayidka, khubaro ka kala socday gudaha iyo dibadda dalka, hay-adaha caalamiga ee qaxootiga iyo bini'aadanimada iyo deeq-bixiyaal caalami ah. waxaana lagu soo bandhigay qabiyo qoraalka sharciga qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka oo la isla gartay in muhiimad gaar ah ay leedahay dhamaystirka sharcigan. waxaana shirkaasi soo xiray ra'iisul wasaaraha dalka waxaana hay-adaha ku guuleysay inay soo saarto siyaasad qaran ee lagu hago qaxootiga barakacyaasha. sameynta qorshaha qaran ee qaxootiga soo laabanaya iyo barakacyaasha National Action Plan. hay-addu waxay wadaa qorshaha siyaasadda qaran ee xal u helidda qaxootiga soo laabanaya iyo barakacyaasha waxaana sharar kala duwan heer wasiir iyo mid dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka lagu qabtay caasimadda iyadoo looga hadlay qabiyo qoraalka qorshaha qaran ee qaxootiga. shirka wada tashiga ee qorshaha qaran ee u helidda xal waara qaxootiga soo laabanaya iyo barakacyaasha oo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka socda dawladda federaalka ah, dawladda xubnaha ka ah ee dawladda dhexe, gobolka Banaadir iyo fuud ka socotay bulshada rayidka ayaa waxaa faray wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxe Diseembar 11 2017. furitaanka kadib gudoomiyaha hay-adda qaxootiga ayaa sharaxaad ka siiyay
kasoo qaybgalayaasha shirkaas oo soconaya 2 maalmood ayaa waxaa looga hadlay qabiil qoraalka qorshaha qaran ee qaxooti iyo barakacyaasha iyadoo la isla gartay inay muhiim tahay taageerida qorshahan waxaana la go'aansaday in la ballaariyo wada tashiga heer federaal maamul goboleed iyo waliba qaxootiga soo laabanaya iyo barakacyaashaba intaba waxaana dabadeed wafuud ka socday dowladda federaalka hogaaminaya gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka Axmed Daahir waxaana 18kii bisha 2017 safar wada tashi u tageen maamul goboleedka Jubbaland Kismaayo waxaana halkaasi soo dhaweeyay wasiiro maamulka gobolka iyo guddiga qaxootiga Jubbaland iyo barakacyaasha waxaana shir Kismaayo hotel ka dhacay furay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha taariikhdu markay ahayd 20ka bisha 2017 waxa wafdi ballaaran oo ka socday dowladda federaalka hogaaminaya gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka marka loo safar wada tashi ku tageen maamul goboleedyada Puntland waxaana si diiran garoonka Garowe ku soo dhaweeyay wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland iyo madax ka tirsan maamulka waxaana halkaasi ka dhacay shir muhiim ah oo aad looga dooday barnaamijka qabiil qoraalka ee u helidda xal waara qaxootiga soo laabanaya taariikhdu markay ahayd 22 bisha 2017 waxa markale gudoomiyaha iyo wafdigiisa oo aanba bixin maamul goboleedka Koonfur Galbeed Baydhabo waxaana si diiran garoonka Baydhabo ku soo dhaweeyay wasiiro maamulka gobolka iyo waliba guddiga qaxootiga ee Koonfur Galbeed waxaana shir 2 maalin ka socday ka soo qayb galay wasiirka arrimaha gudaha wasiirka bini'aadanimada iyo musiibooyinka wasiirka qorsheynta gudoomiyaha gobolka malaaqiyo iyo xubno ka socday qaxootiga soo laabtay iyo barakacyaasha waxaana si aad la iskula qartay qorshaha wada tashiga ee qabiil qoraalka xal u helidda qaxootiga soo laabanaya ugu dambeyntii waxa shirkaasi ku soo dhamaadeen guulo wax ku oola waxaana wali sii socdo wada tashiyo lagu dhameystirayo qorshaha qaran waxaana sidoo kale la aadi doonaa galmudug iyo Hirshabelle iyo waliba gobolka Banaadir oo marti gelinaya barakacyaasha ugu badan dalka